Asalaamu calaykum asxaabteeda qaaliga soo dhawaada kulanti dambe oo xiiso leh waa anigiyo Saki Cabdinuura waxaan idin haynaa ciyaarihii ugu dambeeyey iyo wararkii ugu dambeeyey maanta suuqa kala iibsiga waxaan ku codsanaynaa intaan idin gudagelin ciyaaraha iyo faaqidaadooda inaad page-ka like share subscribe iyo YouTube-ka aad meel isagana subscribe iyo like share aad ku qabataan maadaama ay labaduba cusub yihiin aan doonayn inaan ciyaaraha idin kusoo gudbino waxaan ku codsanaynaa asxaabta qaaliga meel sare na gaarsiiya maadaama aanu jecelahay inaan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aynu la socodsiino sida ugu fiican weliba turxaan la'aan ah idinkuna meel sare na gaarsiiya maanta waxaan idin haynaa kulanka Real Madrid iyo Atlanta oo ay ciyaari doonaan 10 habeenimo ama 4 saac oo habeenimo kulankaas waxyaabo fara badan baan idinka haynaa dhanka kale Dilac iyo Marseille oo lambar cusub qaatay iyagana wararkii ugu dambeeyay baan idinka haynaa maadaama ay xalay ku beereen kooxda Manchester United Man City oo xidig Premier League lala xiriirinayo xidigaas oo xidig aad u qiimo badan waana xidiga Newcastle United Bruno Gomes isagana warbaan idinka haynaa Ivan Toney oo Chelsea iyo Manchester United u dhaxeeya iyagana warkii ugu dambeeyay ayaa idinka soo qabanay oo idinka haynaa asxaabta qaaliga inta ayinka badan boo idin haynaa soo dhawaada mar labaad waxaan ku codsanaynaa inaad like share subscribe aad nagu qabataan maadaama aad asxaabteeda qaaliga tihiin dadkan halkan ku fariisanayna waa idinka family-ga kullu waa idinka dhamaantiin asxaabta qaaliga soo dhawaada Real Madrid ayaa caawa 10 habeenimo ciyaari doonta kulan aad u xiiso badan oo Super Cup-ka ah kulankaas oo lagu soo dhaweyn doono xidig cusub oo qiimo aad u sareeya ama mushaar aad u sareeya ka qaata kooxda waa Kylian Mbappe kadib markuu si qaab xor ah uga soo biiray PSG maanta wuxuu rajeynayaa inuu koobkiisii ugu horeeyay ku guuleysto kulankiisii ugu horeeyayna uu ciyaaro kooxda Real Madrid ayaa ku haysata safkeeda hore xidigo aad u tayo badan oo ay kamid yihiin Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappe afkooda horena waa dab xil ciyaareedkan waxaa laga yaabaa in koobka Yurub Real Madrid jeebka ku urursan doonto maadaama ay soo qaadatay xidigii ugu fiicnaa Yurub uguna qiimaha badnaa waqtiyadii ugu dambeeyay iyagoo u haysta shax aad u fiican shaxda rasmiga la rajeynaya waxaa kamid ah kulay daafaca dhexe waxaa ku soo bilaabanaya Rudiger iyo Militao garabka waa Carvajal iyo Mendy Portuhu waa Courtois sidoo hore dhexda waxaa ku soo bilaabanaya Tchouaméni Modric iyo Jude Bellingham labada garab waa Vinicius iyo Rodrigo sagaalku waa Kylian Mbappe asxaabteeda qaaliga warka kale ee waxaa kamid ah maanta Dilac ayaa kooxda Manchester United u qaatay lambar caan ah xidiga badan ay soo qaateen xidigii ugu dambeeyay watina u ahaa Phil Jones kadib Phil Jones markuu heshiiskiisa dhacay muddo ah kasii maqla lambarkaas cidna ma qaadan una banaana laakiin hadda waxaa qaatay oo ku ciyaari doona maanta Dilac waa lambarka afraad markuu yaraa da'yartaha waa kulankiisii ugu horeeyay uu soo ciyaaray European League ka ciyaaray final wuxuu la ciyaaray Manchester United wuxuuna watay lambarka afraad kadib xilliga 2 sano qiimo badan uu ku qaatay ayagiis wuxuu u wareegay Juventus oo ku soo qaatay 2 xilli ciyaareed oo koobka Serie A la qaaday laakiin uusan saameyn aad u badan ku yeelan maadaama uu ku adkaatay nolosha Talyaanigu uu ka soo wareegay wuxuuna u wareegay kooxda Bayern Munich uu 2 sano joogay sanadkii hore uu haystay booskiisa laakiin sanadkii labaad waxaa booskii ka qaaday Erik Dyer maadaama uu tababaraha Thomas Tuchel uu ka walaacay waxqabadka Dilac lambarkaas afraad wuxuu ku caanamaaray in badan laakiin hadda wuxuu Manchester United sugayaa nolosha cusub ee Premier League isu ula qabsan lahaa kadib xalay markii la wareystay wuxuu yiri Ten Hag hore inuu soo shaqeeyay qaab ciyaareedkii ugu fiican isaga soo saaray midda kale diidi waayay Manchester United oo soo raadisay markaan maqlay wax walba war ogolaaday waa rabeenan nolosha cusub ee Premier League iyo Manchester United aan ku biiro halka uu u mahad celiyay kooxiisa Bayern Munich iyo taageerayaasha uu yiri wax badan ba soo garab istaagtay kulanka dambeeyay hayna waxa weeye semi-final waxa la ciyaari doonaa Al Nassr iyo kooxda Saudi Arabia Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa caawa inuu ciyaaro koobkiisii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka waxa ciyaari doona kulan semi-final ah oo Super Cup-ka Sacuudiga ah waynu eegi doonaa waxa ka soo baxa Al Ahly Al Nassr xilli ciyaareedkii hore wuxuu ku dhameystay kaalinka labaad iyagoo wax qabad fiican soo qabtay soo sameeyay laakiin wala jeeyn doonaa meesha ay gaaraan xilli ciyaareedkan Cristiano Ronaldo wuxuu doonayaa in la soo xoojiyo kooxda maadaama hadda ay raadinayaan Anthony iyo xidiga badan oo Yurub kamid ah waynu eegi doonaa meesha ku dhamaado kulankaas
galabtaan la ciyaari doonaa insha Allah. daawasho wacan idinkuna waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysataan ciyaaraha. Ivan Toney ayaa la isku haystaan kooxaha Chelsea iyo Man United kadib markuu Ivan Toney yiri waan baxayaa xilli ciyaareedka dambena uu heshiiskiisu dhici doono. Brentford ayaa doonaysa inay sii deyso ayna fasaxdo in lacag ku hesho maadaama uusan doonin inuu heshiis cusub saxiixo. kooxda Manchester United oo haysatay awalba Joshua Zirkzee iyo Højlund ayaa laga yaabaa inay ku soo dhaxayso weeraryahankan Ivan Toney. intii ugu dambeysay Manchester United weerarkeedu wuxuu ahaa weerar khasaarin badan, fursado chance abuuridkeedu aad u kooban yahay, chance-yada ay helaana beer dareeya. laakiin hadda waxay doonaysaa inay weeraryahanada ugu fiican Yurub ay ku haysato kooxdeeda iyo daafacyada ugu fiican. labadaasba aad baa looga dhaleeceynayay Manchester United